Assalaamu calaykum. Kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada warbixin kooban oo uga hadlayno qaabka Iiraan ilaha sirdoon uga hesho gudaha Israa'iil. Sida Iiraan ku heshaa bartilmaameedyada saxda ah ay ku dhuufato gantaalada iyo weerarada ay ka geysanayso gudaha Israa'iil. Yaa iskala dayax gacmeedka u sawira goobaha muhiimka ah ee Yahuudda sida xarumaha militariga iyo halka ay ku jiraan madaxda Israa'iil. Ma sax baa in Iiraan ay gudaha Yahuudda ku leedahay ilo sirdoon oo qarsoon oo u soo gudbiya dhaqdhaqaaqyada militariga? Su'aalahaas iyo kuwa kale ayaa dunida gilgilay kadib markii Iiraan ay si joogto ah u weerartay xarumaha muhiimka ah ee Yahuudda sida saldhigyada militariga, xarumaha sirdoonka, garoomada diyaaradaha, ilaha dhaqaalaha iyo xitaa rugta gantaalada Israa'iil. Iiraan iyo kooxda Xisbullah ayaa weeraro gantaalo ah si wada jir ugu qaaday gudaha Israa'iil, iyadoo digniinta gantaalada laga maqlay magaalada Tel Aviv iyo meelo badan oo ka mid ah bartamaha Israa'iil. Ciidamada Yahuuddu waxay sheegeen in difaaca gantaalada hawada ay la tacaalayaan gantaalada ay sida wada jirka u gameen Iiraan iyo Xisbullah, balse qaybo ka mid ah gantaalada ay ku dhaceen bartilmaameedyadii loo soo qorsheeyey, taasi oo sababtay dhaawacay sidoo kale burburka deegaano la deganaa. Weerarkan ayaa yimid iyadoo dagaalka u dhexeeya Iiraan iyo Israa'iil iyo xulufadeedu uu galay toddobaadkii labaad, halka Xisbullah sidoo kale ay riday gantaallo ay ka soo ridayso Lubnaan, taasi oo dagaalka ka dhigaysa mid laba jiho ka socda. Dagaalka u dhexeeya Iiraan iyo Yahuudda iyo Maraykanka oo dhinaca ayaa saameeyay nolosha dadka Yahuudda ee ku nool Tel Aviv, halkaas oo dad badan marar badan ay ku qasbanaadeen inay u cararaan hoyga gantaalada marka seeriga digniinta laga dhawaajiyo. Haddaba maxay tahay sababta Iiraan iyo Xisbullah u fududaynaysa inay duqeyn la beegsadaan bartilmaameedyo rasmi ah ku yaal gudaha Israa'iil? Iiraan waxay isticmaalaysaa dayax gacmeed casri ah si ay u hesho xogo muhiim ah oo ku saabsan saldhigyada militariga iyo xarumaha kale ee Israa'iil. Dayax gacmeedkan waxa uu si joogto ah u qaadaa sawirro iyo xogo laga helayo dhulka, gaar ahaan goobaha militariga iyo xarumaha kale sida garoomada diyaaradaha iyo xeryaha ciidamada. Dowladda Iiraan waxay leedahay dayax gacmeedyada Noor-1 iyo Noor-2 kuwaasoo loo adeegsado sawir qaadista iyo ilaha sirdoonka, waxaana la aaminsan yahay inay horumar ay ka samaysay Iiraan tiknoolajiyadda casriga ee dayax gacmeedyada, gaar ahaan kuwa militariga oo ka caawiya inay si sax ah u beegsato bartilmaameedyada ku yaala gudaha Israa'iil. Sidoo kale Iiraan waxay isticmaalaysaa daroon casri ah. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxay noqdeen xog ururiyaal muhiim ah oo Iiraan u isticmaasho si ay u ogaato dhaqdhaqaaqyada militariga ee Israa'iil. Darooniskan waxaa loo adeegsadaa in la kormeero goobaha militariga iyo saldhigyada, iyadoo si qarsoodi ah u ururinaysa xogta muhiimka ah. Tiknoolajiyadda casriga ee hagidda gantaalada sida Global Positioning System (GPS) iyo Inertial Navigation System (INC) ayaa door weyn ka qaatay in gantaalada sida saxda ugu dhacaan bartilmaameedka. Nidaamyadan ayaa u oggolaanaya in gantaalku uu si joogto u hagaajiyo jihadiisa inta uu hawada ku jiro, xogta ku saabsan meesha uu joogo iyo bartilmaameedka la doonayo in la beegsado. Khubarada militariga ayaa sheegay in isticmaalka tiknoolajiyaddan ay ka caawinayso dalal badan oo Iiraan ay ka mid tahay kordhinta saxnaanta gantaalada u adeegsiga weerarada, taasi oo ka dhigan in bartilmaameedyada Iiraan ay weerarayso ay yihiin kuwo la hubiyey isla markaana gantaalada lagu hago si loo gaarsiiyo khasaaraha bartilmaameedka la doonayo in gantaalku uu ku dhaco.